السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وانا دي سلامي أصحاب هودان كو صاحبني وامر كليو قرديدو في الشيال runtii seasonkan waa season cusub hadda ayaan bilownay dhowr season ayaan rabnaa inaan ka sameyno runtii waa qiso aad iyo aad u xanuun badan qisadan waxay la magac baxday sirtii jacaylka runtii sirta jacaylku markii aad maqasho wax badan unbaa kugu soo dhacay wana socdaa laakiin hadda idima hor dhacaayo si toos ah waxaan noo bilaabanaysaa sheekadan wiilkan iyo gabadhan ayaa jeclaa muddo yaraantoodii waqti dheer isla soo qaatay runtii isla soo samray wax badan soo maray taariikh badan wiilkan wuxuu ka dhashtay cid taajira gabadhan waxay ka dhalatay cid iska faqiira waxba aan haysan ninkan aad arkaysaan oo odayga ah meesha taagan waa wiilka aabihiisa wiilkana shirkadii oo dhan ayuu wuxuu ka yahay manager marka aabihiisa wuxuu go'aan ku gaarayaa gabadhan kale aad arkaysaan magaceeda waxaa la yiraahdaa Sonal la yiraahdaa Sonal runtii odayga wuxuu u yahay adeer ayuu u yahay walaalkii ayaa dhalay wiilkii iyo gabadhan waa ilma adeer aabihiisana adeer waa wuxuuna rabaa gabadhan inuu ku daro balse asiga ma doonayo wuxuu rabaa gabadhan kale intaasoo sana xiriirka uu la soo waday laakiin maxay kugu taalaa meelay timaado waxa waa kibirna waa yaala mugtahay runtii ninkan gabadhan asi wax dani xaaja muusan ka lahayn balse odaygii markuu go'aan ku gaaray inuu gabadhii u guuriyo wiilkii go'aan cad ah ayuu qaadanayaa go'aankaasoo ah in odayga noloshiisa ka fogaado odaygana wuxuu leeyahay haddii aadan gabadhan guursanaynin laba midkooda ama laba daran mid dooro leeyahay in adigu xaq aad igu lahayd inaan ku siinayo aadan marnaba isheegan doonin waa tahay gabadha waa tan xiriirka ka dhaxeeyay wiilkii gabadha aad aragteen waa gabadhan jakatinka gaduudka wadata wiilkan waa wiilkani wajigeeda ay ka qarinaysaa muddo badan ka soo wareegatay markaan waa ugu yaraan 7 sano ilaa 8 sano ka soo wareegatay kadib ninkan gabadhii uu arkaya wuu dareemayaa sababtoo ah raashin meel lagu cuno maqaahiyo kale ayuu fadhiyay gabadhii meesha ku arkaya la yaab la noqonaysaa asigoo dhan si kale u noqonaya dareenkiisu isbedelaya marka wuxuu soo xasuusanayaa waayihii ee waqtiga soo wada qaateen gabadhan waxaa jirtay eray mar walba wiilkii dhihi jirtay oo asigan ku xasuusan jiray oo ahaa ma laga yaabo maalin inaad iga fogaato oo asigan ku dhihi jiray may lagama yaabo inaan kaa fogaado haddii ay dhacdana inaan kaa fogaado maalintaas waa maalintii dunidii ugu dambeysay waa cajiib gabadhii iyo wiilkii si lama filaan waxay ugu kulmeen cafeteria isma arkin laakiin kor waa la iskala jeedaa waa la iskala joogaa balse qofka kale waa uu kaga gaabsanayaa kulley waxbaa meesha ka soo socdo runtii wiilkan gabadhan horta jacayl waa uu u qabay mana la isdhihi karo duni ayuu ka doortay because of qofkan asiga ma uusan dooran in gabadhan maxaa yiraahdaa uu ka fogaado laakiin aabihiisa wuxuu ku kalifay ama laba shuruud ayuu soo agdhigay labada shuruud oo ah wiilkaygiiyo gabadhan aniga ku keenay waa inaad guursataa markuu wiilku ku yiri kadib aabo aniga gabadhan ma guursan karo duqi kadib go'aan wuxuu soo saaray oo ah ama go'aan uu ku gaaray laba option ayuu wiilkiisa inuu siiyo labada option oo kala ahayd gabadhan haddii aad guursan weysid dhaxalkaad igu lahayd waan ku saxiixayaa dib damban aniga adiga isma sheeganayno soo wiilkii runta arrintii fajacila noqotay dabcan qof maanta yeelayna ma jirto aabahaaga ka fogo ama waalidkaaga ka fogo qof hebel ugu soo go'o ma jirto soo wiilkii runtii arrintii fajacila noqotay gabadhiina ballanoo ka qaaday aabihiina sidaan ayuu leeyahay soo wiil go'aan wuxuu u soo baxday in gabadhii dhankeeda uu ka goosto maalin maalmaha ka mida silma filaana ayuu gabadhii dhankeeda u soo aaday weliba asagoo rabo gabadhii in waxyaabo fara badan inuu u sheego balse waa ay dhici weysay sababtoo ah
nasiibku in badan haddii uu ku seego maalin unu xadhici doonto in uu ku seego adigoo sugaad weynaysa adigoo sabrana oo helaysa so nolosha sideeda banaana waa canbacayn runtii wiilkan waxaa ku dhacday qiso aad iyo aad u xanuun badan shakhsiga nadarkiisa wiilka gabadha runtii asigoo jeclaa lama lasdhihi kara maxaa la dhihi jiray ninkan waa wuxuu ahaa markiis horeba nin qayaanoola lama dhihi karayo sababtoo gabadha jacayl buu qabay laakiin daruufuhu markii si toos ah kuu soo abaaraan aad buu xanuun badan tahay waa ku iska xasuusanaya gabadhii waqtiyada soo qaateen imeelay ku kulmi jireen intaba so asigoo weliba ka shakinaya gabadhii hiblaayo maa tahay ayuu yiri way sii deysay gacantiisa markaasay ku tiri ayadana maya umihi laakiin waanu ekahay haddii loo baahdo waa noqon karaa asigana wuxuu ugu jawaabayaa dhacday ma dhici doontaa mase laga yaabaa inay igu soo laabato yes impossible meel huu fiiriyey lama filaani ku noqotay maxaad ula jeedaa ku yiri waxay ku tiri dawfaantu wax bay kicisaa wax ma dejiso laakiin adiga waxaa rajeynayaa maskaxdaada ama bini'aadanimadaada ama dadnimada kugu jirto in ay maalin uun ku hagi doonto guushaada saxda ah haddana waqtiga inaan kaa lamiyo mar rabay tiri waxaan rabaa inaan kaa sii tago shaqooyin fara badan ayaa ii taalla okay doqo waa laga soo tagay gabadhii way ka soo tagtay ninkan araggii wax la noqday lama filaan istaag buu yiri way istaagtay gabadhii markay istaagtay kadib wuxuu weydiiyay su'aal ma weydiin karaa yes ha su'aasha soo ah wuxuu yiri waxaan rabaa inaad ii saxiixdo ama form inaad ama just saxiixa wax aad aan kugu samayn karo aan rabaa okay kadib markuu hore waa fartay ayada qori jirtay saxiixeeda inuu isleeyahay in kale kala ogaado haddana mar kale istaag waa istaagtay gabadhii waat iyadoo dhol cadaynaysa haddana way kasii dhaqaajisay jacaylo dad badan ama duurka u dirtay adiga duqa waa kan meeshaan isku soo fadhiistay meel wuxuu imaaday lagu cabeeyo yaa iska fadhiisto waxaan ku yidhi dee yaaban kadib ninkii marka telefoon iska soo qabsan dhigto iska saaranaya mid saaxiibkiisoo rabaa inuu call gareeyo yiraahdo hay balniyo arrimihii asigaa qofta ayada heed balniyo waa yaa shaki baan ka qabaa kadib ninkii asigoo isla yaaban oo meel walba ka raadiyay dhan walba ka maray inta ka baxay xafiiskiisa so waxa dhacday 11 maalmood xafiiska shaqada inuu san iman markii gabadha uu la kulmay kadib ninkan saweyn fara badan ayaa soo wajahay kadib shaqooyinku asiga hayay inta badan ba waxay la noqdeen fail marka doq waa kana lambarkii loo qoray ay gabadhii asiga saxiix kale yiri laakiin ayada lambar ee meesha uga qortay doq waa lambarkii oo meesha ku qortay telefoon walba ka wacay so lambarkii wuxuu u noqdaba lambar surprise ah dadkii saaxiibkii ayaa dabcan lambarkiisa ku tijaabiyay kan uu gali waayay kan uu gali waayay labadooda telefoonka uu gali waayay kadib go'aan wuxuu qaadanayaa ama midka saaxiibkiisa tixraac inuu sameeyo gabadh inuu tixraaco ama arrimihii barnaamijyadii wixii inuu dabagalo midka saaxiibkii runtii wuxuu nin aad iyo aad u dadaal badan uu dadaal dhan walba wuxuu yiri saaxiibo ma laga yaabaa qoftii aad sheegaysay noqoto markaas wuxuu yiri hal sir baa jirta sirtaas ah sir naga laga masal gaaro asagoo yaaban oo hadalka u dhameystirin mid meesha ka shaqeyso oo waxaan ku dhahay fuuci iska ahoo secretarykiisa xoogaa wax iskala dhaxeeyaanba meesha timid kadib asagoo u muujinayo xero dhol cadeen ah sababtoo ah markuu ereyga dhahayay qoftan in ka shaki soo diidara gabadhan markada waxay tirahay doqa xoogaa waxa wadaa soo maahan in wax kala qabayso naga daa ma caadi waa camro leeyahay sheekadan macnaha kor aagabax waa sheeko waxa la jiray iska simple ah markaas wuxuu leeyahay su'aaladan ku weydiiyay adiga inta ku imaada markaas wuxuu leeyahay marka xoogaa arrimihiina iyo sheekadiina iyo wixiina maqlay way hagaag waxa ataba ninka marka waa loo baaqaa taraafkiga gacanta laga saaraa miya camal uu leeyahay bal ka dhex eeg camal 4 sano tirish meesha ku dhex jirto in ayada ka mid tahay duqeys marka loo dhiibay
igaarkaana waxaa qorshe kale oo keenay igaarkaana waxaan ku dhahay tala ku wareersan balse maxaa dhici doono waxa dhici doono wax soo socda ka weyn muuqaalka noo shargareeya waana maasantihiin runtii qisadan waa qisaad waxaan badan la socda beertuwan leh hadda ilaa dhowr beerta ka soo sameyn doona insha Allah okay hagaag gabadhu si lama filaan hadana kafteerigii maalin ula kulmaa jirtay duqa maalintii ariga isla dhaafsadeen jireen ereydaas oo kamid ahaa halkan ma ku cusub tahay maxaa ka soo doontay ma jeceshahay inaad cabto cabitaanka ayadan markii cabitaanka kulul ma cabin isticmaasho marka hore inuu ku kala ogaado asigoo waliba u muujinayo wuxuu soo qabanaa bal rings oo kala ah oo meesha u saaraya oo ugu talagalay in uu ayada oo ku soo jiito laakiin qoftaan waaba qof taqaana ningeed gali jiray looma gala abo mafahmaysaa ningeed gali jiray looma gala maqli jiray duq waa laga qaadaa waa laga fiirinaa kadibna de si aayarab loogu tagaaba maba laga waalinayo kadib markuu xilada gabadhii waxaan rabay xoogaa in arrimo yar iska soo xaleeyo ma bixi karaa oo kale kadib marka telefoon ay soo qaadanaysa dhigtay saamnaysa de wajigiisa fiirinaysa farxadda ka weynaysa markaas leedahay haddaan su'aal ku weydiiyo maxaa waay wajiga sidaas muxuu u yahay maxaase u bedelantahay markaas wuxuu jawaabay caadi waay xoogaa waa isku dhufasho iyo xoogaa waxba isdab maraban ka fikiraya markaas leedahay waa yahay haddii saas ay tahay xoogaa taa dholcatay duqa xoogaa marka erayada ama hadalada loo gelgeliyo xoogaa yaa dareen baa galay isleeba qoftan waa qoftiiba dabagalo isleeyahay xog walba ka ogow laakiin nasiib wanaag ma dhicinba in uu wax ka ogaado laakiin waxbaa soo socda oo weliba ka sii daran daabayaal waa maasantihiin meel walba adduunka ka joogtiin noo shargalay muuqaalka subscribe na noo saar